الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قاليقا igu xiran ama ku xiran channelkayga Muneesa Channel meel walba adduunka ka joogtaan inay wada caafimaad qabtaan arjayna fadlan hadaan cusub tahay channelka subscribe noo saar sidoo kale muuqaalka like noo saar videogana asxaabtaada la share garay wixii raayigana qaybta commentiga noogu reeb aad ay umahadsantihiin sida wanaagsan ama walba la socotaan garab istaagiina commentidiina jazakumullahu khayrna idin leeyahay maanta waxaa idin wadaa qiso ku dhacday baay Soomaaliyeed oo idinkaga baahan maanta inaad talooyin fiican soo siisaan iska soo qaadaan qisada idinkaba inay idin heesato ee idinku dhacday waxa isku xalin lahayd adiga walaasha la soo wadaag walow channelkii hadda wax comment saas aan laga soo bixinin ilaa ay dhowr qof oo far ku tiris dadkaasna aad iyo aad ay umahadsantiina idin leeyahay markay dad ila joogaan ee markay dadka iga maqan yihiin garabkayga ka muuqatiin jazakumullahu khayrna idin leeyahay qalbiga idinka salaamayaan idinka jecelahay marka waxaa idinka codsanaa walaashiina ahay ina muuqaalka like ii saartaan like lacag ma ahan dhiirigelisaan muuqaalada ii share gareysaan intaas idinka codsanaya oo codsi walaaltinimo haddii meeshaas ugu gudbo gabadh walaashay waxay ku nooshahay magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Barakeysan ee wadanka Somaliland ayay ku nooshahay baayo waxay dhahday waxaan ahay gabar yar da'deeda 20 sano jirto sidoo kale waxaan noolahay ay tiri ehelkayga habar yartay ayaan la noolahay hooyaday aabahayna waxay degan yihiin wadanka Itoobiya ama Itoobiya meel ka tirsan ay degan yihiin gabadh walaashay waxay tiri aniga ma ihi dadka u badan isticmaalka social media laakiinse marmarka qaar waxaan isticmaalaa Facebook ay dhahday asagana sidaas uma badni waan soo galaa markaan ka dhameystana waa iska xiraayay tiri oo sign out ayaan iska dhahaa habeenada kamid anoo Facebook-kaygii furtay ayaan messenger-kayga waxaan ku arkay tiri fariimo isugu jiro qoraalo iyo miskoolo oo qof aanan aqoonin ii soo qoray soo wacay qofkii ayaan isku dayay tiri inaan dabagalo oo ogaado qofka uu yahay wuxuu noqday tiri qof wiil kadibna waxay tiri si toos ah ayuu ila soo xiriiray wuxuuna iga dalbaday inaan aan xiriir sameeyno oo i barto kadib waxay dhahday aniga waxba kama dhiganin wiilkii waxashada uu ii soo bandhigay waan isbarnay tiri muddo isla soconay dhahday waqtigaasna waxay ahayd sanadkii hadda laga soo tagay 2021 bisha January waa bishii ugu horeysay ay ahayd waqtigii isbarteen wiilkan iyo gabadhaba wiilka waxay tiri waa wiil degan qurbaha qaasatan wadanka Australia mid kamid inay dhahdaan jeclahay laakiinse hadda waa ilaabay wadankii mid kamid wadamadaas waay uu wiilka ku nool yahay waxay tiri xiriirkeeni waa uu dheeraaday wiilka waxay dhahday waxaa ku arkay tiri dabeecado aad iyo aad bedelan masiir la jiro 24 hours waxay tiri horta khadka igama baxaayay dhahday way la taagan yahay uu soo wacaa maalin ma laho habeen ma laho mar walba waxay tiri online waaye dhahday intaas waxay tiri aniga dhib kuma qabinay tiri haddana wuxuu keenay tiri in wiilkii uu maseeraayo dad aan la arkeenin uu ka maseeraayo haddii telefoonkayga wax yar uu soo waco oo busy ka dareemo wuxuu leeyahay la hadlaysay yaa la sheekeysanaysay telefoonkaaga maxaa ku dhacay control aan yareen oo aad iyo aad zaid u ayuu wiilkii keenay ay tiri gabadhii waxaan isla tiri walaalo qof weyn waa tahay sidaana si loo dhaqmo ma ahan ee dhaqankan wax ka bedel ayaan ku dhahay waxay tiri sidoo ahayd oo iskuul wada soconay waxaa la gaaray tiri markaan dabayaaqadii sanadka 2021 wuxuu dhahay waxaa rabaa inaa waalidkaaga ka soo doonto waxaa rabaa waalidkaaga meel kala xiriir inaa isiiso kadib waxay tiri numberka hooyaday ayaan siiyay waxaan dhahay hooyaday waa ka numberkeedii la xiriir wiilka waxay tiri wuxuu wacay hooyo wuu la hadlay wuxuuna u sheegay xiriirkeenii rabitaankiisii wixii oo dhan oo kala hadlay wuxuuna dhahay waxaan jeclahay bishaan hadda December na soo aadan waa sanadka dhamaadkiisa waaye aan familkayga soo dirsanaa
waxayna imaanayaan magaalada Hargeysa adeeraday iyo abtiyaday si markaas gabadhaadii iga kaasoo doonaan. maamadii waxay dhahday waayahay waqti allaale waqtigaa is dhahdo jaanis ayaa haysaa, waad isku toosan tahay, waad imaan kartaa, guriga wuu kuu furan yahay. wiilkii hadal fiicanaa la siiyey. gabadhii waxay dhahday intaan la gaarin ay dhahday 24 December maalmo ka hor wiilkii waxay dhahday waan waayay tiri. jaani cirib meeluu dhigay waan kasi waayay tiri. qadadkiisii oo dhan meelihii social media iskala xiriireen waxay tiri waan ka waayay. haddii ahaan lahayd Facebook, haddii ahaan lahayd WhatsApp-ka, haddii ahaan lahayd email, meel walbay tiri markaan waayay kadib nambarkiisii caadiga inta telefoonka lacag ku shubtay aan wacayay tiri, laakiinse waan waayay. haddana anigoo sida u yaabanay tiri aan waxaan wacay dhahday wiil ay ilmo adeer ahaayeen. wiilkan dadkiisa waxay degan yihiin Puntland ay degan yihiin, marka waxaa jira wiil ay ilmo adeer yihiin ee markaas Puntland joogay in gabadhan hore uu baray uuna ahaa markaas wiil soo raaci doona familka marka ay gabadhan soo doonanayaan. wiilkii ayay wacday kadib waxay ku tiri war hebelow maxaa dhacay, wiilkii hebel ahaa nambaradiisa ma shaqeynayaan, meelihii markaas aan iskala xiriireen oo dhan ma shaqeynayaan, ee sidee wax u jiraan, wax wara kama haysaan. markaasaa wuxuu ku dhahay wiilkii wuu xanuunsaday ee isbitaal ayuu galay, xanuun degdeg ayaa ku dhacay oo lama filaan ah. gabadhii waxay dhahday sidii adiga markaas aan wiilkii u raadinayay wixiisi aan u wacayay, haddii ahaan lahayd WhatsApp-kiisii, haddii ahaan lahayd telefoonkiisii, waxay dhahday 2 maalin kadib ayuu iisoo jawaabay. kadibna wuxuu dhahay aniga waan xanuunsaday, dhakhtar emergency aan galay, marka xaalkayga saas u ahaa, haddana waan soo baxay. 24kii balantii aan kaa qaadayna u sheeg maamada iyo maxayto waalidkii ma sameyn karo, ma kusoo doonan karna ee dib ayaan u dhignay doonashadii. gabadhi waxay tiri waayahay, hooyadeeda u sheegtay. hooyadii way iska ogtihiin, way xanaaqday. waxay dhahday maxaa ninka ka siiya haddii uu xanuunsaday xitaa maxaa dhacay, waalidkiisaa imaan lahaa asaga ma imaan lahaa, maxaa qaldan waa sheekadan, waxbaa ku duugan. marka gabadhi waxay dhahday maamooy waxaa laga yaabaa in wiilka uu run u xanuunsanaa ay daacad ka tahay, bal waqti aan siino, jaanis kale aan siino. maamadii way iska aamustay. wiilkii ku noqotay waxay dhahday walaalo saan xal maahane maxaa kalento hadda xiga oo qorshe ku ah. markaasaa wuxuu yiri sanadka cusub ee 2022 bisha Janaayo ama January aan kusoo doonanaa, weliba anigaa soo baxay, waan soo safraa Soomaaliya imaanaa, Puntland ayaa imaanaya, anigii iyo eelkayga isla socono ayaa ku imaaneyno. gabadhii aad ayay u farxday markii uu sidaas dhahay. markaasaa wuxuu yiri markii aan soo baxayna waxaan rabaa inaan Dubai soo maro, maxaa jeceshahay oo aan Dubai kaaga soo qaadaa oo aan kuu soo gadaa. waxay tiri waxaan ku dhahay waxaan rabaa inaa ii keento katiinad ay ku qoran tahay magacayga ee lagu soo sameeyay magacayga in aa ii soo gado. wuxuu ku dhahay waayahay waan kuu keenayaa. sida lasugu ogaa ay arrinta sida ahayd oo wiilkan dhahay waan soo baxaa, waxaa imaanaa Dubai ayaa imaanaa. gabadhi waxay tiri haddana sida loo joogo wiilkii jaan iyo cirib meel oo dhigay, haddana waan kasi waayay tiri. WhatsApp-kiisa ma shaqeynaayo, telefoonkiisa ma shaqeynaayo, meel walba aan ka wac ma shaqeynaayo. haddana waxay tiri wiilkii ilmo adeeraha ahaayeen aan ku laabtay oo waxaan dhahay walaalo wiilkii sidee wax ka yihiin waaye, waan soo socdaa uu dhahay. haddana wiilkii nambaradiisii iyo meelihii aan kala xiriirayay oo dhanbo ma shaqeynayaan. markaasaa wuxuu ku dhahay hebel wuu yimid laakiinse guriga ma imaanin oo xaafadda ma imaanin, wuxuu aaday hotel ayuu degan yahay, marka asagaa kusoo wici doonaa ka warsug. gabadhi waxay dhahday maalmo kadib uu soo wacay wiilkii, wuxuu dhahay aniga number ma qaadanin, haddaan number qaatay WhatsApp iyo waxyaabahaas aan samaystay, marka waa kaasaa maalmaha soo socdo waa imaanayaa, aniga iyo waalidkayga waa soo raacaynaa, saas oo la soco markaan ma jiri doonaan wax ibaajin doono ama baaqasho keeni doono. gabadhi waxay tiri markaan waa farxay dhahday, waa markii labaad waa waalidkayga waa u sheegay, waa loo diyaar garoobay tiri imaashihiisii. laakiinse maalmo kadib wuu isoo wacay, wuxuuna igu dhahay walaale, markuu saas isoo wacayna wuxuu igu dhahay walaale ani adiga waa taa ogeyd inaan ku heshiinay in lagu soo doonaayo aniga iyo waalidka aan ku imaaneyno, laakiinse arrin waxaa dhacday dhib ah
gabaraan qaraabanahay oo walaashay ah ayaa dhimatay, marka tacsiyaana gashay, saas darteeda ma imaan karo u sheeg waalidkaagii ee sidaas oo la soco. waxay tiri ilaaha u naxariisto gabadha dhimatay, waan ka aamusay dhahday. marka qof tacsiyo gashay inaan hadal aan lasii wadwado yani damiirkaygu uu isiin waayay tiri. familigana waa u sheegay, waxaan dhahay wiilkii tacsiya gashay ee saas la socda. hooyaday aad iyo aad ayay u xanaaqday tiri. sidoo kale dadkii oo dhan way xanaaqeen oo waxay dhaheen ninkaan nin ku raba ma ahan, ninkaan maxaa mar walba hadal walba oo ku dhaha u aamintaa, maxaa ma ku sixraday, sidee wax kaa yihiin, ninkaan haddii rabitaankiisa ay run tahay wuu imaan lahaa, wuu kusoo doono lahaa, laakiinse ninkaan lugbaa u duugane ee ninkaan faraha iskaga qaad gabarey. gabadhi waxay tiri markaan waxaan noqday tiri qof beenley ah, waxay dhahda aan la rumaysanaynin, intaasoo dhanna waxaa u wacanay dhahda waa asaga. mar walba oo ballan iga qaadana ballantii wuu ka baxayaa, wuxuu leeyahay saanaa dhacday, mar wuxuu dhahay waa xanuunsaday, marna hadda waa kana wuxuu dhahay maxay hayto gabaraa dhimatay. marka waxay tiri familkeygii way iga rajo dhigeen, hadalladeediina waxaa laga soo qaaday hadal aan wax ku oo lahayn, maalayacni ayaa laga soo qaaday. kadib waxay tiri waxaan ku dhahay walaalo tacsiyada haddii ay kaa dhammaato warcad ayaan kaaga fadhiyaa. tacsiyadii markii maalmo ay maxay hayto kasoo wareegatay oo adiga isbuucii la gaaray aan waxaan dhahay walaalo anaa waxay tiri xitaa maxaa meel kuu maraayo, maxaa kuu qorsheysan. familkeygii aniga maxay hayto waxay iga aamineen qof beenaley ah, qof i aaminaayo ma laho. marka intaasoo dhanna waxa uu wacan waa adiga ee walaalow ma i rabtaa, ma i jeceshahay, run ma kaa tahay ee runta ii sheeg. haddii aadan i rabinne runta ii sheeg walaalow, waxba ani ha ilugoynin, waqtigeyga ha ku ciyaarin, ee waxaan kaa baryaa in aa runta ii caddeysay. ilka iyo runbo waa la caddeeyaa, aniga kaagama xumeeyey tiri. intaa i meermeerin lahayd intaa runta ii sheegto ayaa igala fiican. markaasaa wuxuu dhanaa muwaalan tahay, dartaada oga imid aniga wadankaas, adiga inaan ku guursado, adiga inaan ku arko, maxaa sidaas ila hadlaysaa. markaasaa waxaan ku yiri haddii ay runkaa tahay ee walaalow sida ugu dhaqsiyaha badan familkeyga way imaaw. waayahu igu dhahay tiri. maalmo kadib wuu igu soo laabtay tiri saaxiibey arrinaa rabaa inaan kuu sheego, maalmahan oo dhanba inaan kuu sheegaa rabaa, haddana si aan kuugu sheego ama meel aan kaaga bilaabaa la-sanaay. familkeygii waxay i dhaheen waxaa lagugu daraayaa gabaraa qaraabo tihiin, arrintaasna aniga waa ka biidiidsanahay, aniga adigaan ku jeclahay ee walaale arrintaasna way jirtaa ee saas u ogow. markaasaan waxaan ku dhahi tiri intaan oo dhibaata iyo rafaad ah i marsiinaysay ma intaasaa maxay hayto kaasoo ureysay, ma hadalladaasaa soo waday. markaasaa wuxuu dhahay maya anigii aamin, waxaas waxaan ogaay ma ahan, arrintaan way cusub tahay, anigaba ma rabi gabadha la sheegaayo, gabaraa qaraabanaha waayo oo familkeyga ee waalid ugu aadan yihiin. marka ani adigaan ku rabaa, adigaan dartaada u imid, adigaan qarash kuu soo galay, adigaana ku rabaa. waxay tiri walaalo ani maxaan bedeli karaa, ninka wax guursanayo waa adiga. adigii haddii sidaas lagu leeyahay aad go-aan qaadan karin, marka maxaa samayn karaa waa maya. mid kale waxay tiri waalidkaaga waxa ay rabaan u sameey, ducadooda qaado, waxa ay ku leeyihiin sameey, aniga ha ilu goynin intaan ka badan. dadkii waxaad igaga dhigtay qof beenaley ah, waxaa iga dhigtay qof aan go-aan lahayn, qof waxaa iga dhigtay tiri yani hadalkeeda aan wax kasoo qaad lahayn. marka intaan ka badan ani adiga ma isla sii socon karno ee walaalow meeshaan lagu kala wad waayo. gabadhi waxay tiri wiilkii meel walba oo igala soo xiriiraya, haddii whatsapp ahaan lahayd, haddii facebook ahaan lahayd, telefoonka inta waxay tiri blogga geliyay si uusan ii soo xiriirinin, uusan hadallo markaan mar labaad u igu celcelinin oo haddana ii jilcinin. waxay tiri isaga oo dhan waa iska bloogay tiri. waxaan ku gaaray tiri inaan ilaawo oo niyadeedii ka saaro. waxay dhahday muddo yaraa kasoo wareegatay, waxaan isbarnay tiri sidoo kale inta wiil kale ayaan isbaranay, wiilkan waxaan iska baranay tiri facebook ayaa iska baranay. wiilkii muddo yaraa isla soconay tiri oo bilooyin ah. kadibna wuxuu dhahay walaalay waxaan rabaa inaan ku arko, waan kaa helay, waan ku jeclahay, waalidkaagana inaa kaasoo doonto ayaan rabaa. markaasaa waxaan ku iri tiri haddii aad rabtid inay aragto ama waalidkayga iga soo doonato iigu imaaw magaalada Hargeysa, iigu imaaw,
wiilkan wuxuu joogaa ay tiri magaalada Muqdisho joogaa asagana anigana magaalada Hargeysa joogaa ay tiri يعني فرقigaas noo dhaxeeya sidoo kale wiilka waa wiil dadkiisii oo dhan ee Mareykanka ku maqan yihiin asagana wuxuu ii sheegay tiri in mar dhow Mareykanka uu aadayo uuna daneynayo gabadhan inuu la kulmo la kulankiina hadda waxay ku xiratay in asaga iyada uu tago asagina wuxuu leeyahay aniga waxyaabo kale inta igu furan ma imaan karo waqtigana ma ii saamaxayo ee adiga iigu imaan Muqdisho lacag wax walbo waan ku soo diraa waxaan ku dhahay tiri aniga taas ma sameyn karo waana runay tiri ma sameyn karo waalidkaygii inta ogaanta ninkii mariyay inaan dhaho hadda nin wadan kale ugu tagay tiri anoo gabar yar ay tiri waxaas macquul ma noqonaysa tiri kow ayaaba la iga siinayay dhahday anigana ma rabo waalidkaygana sharaftooda ma ku jirtay dhahday taas marka waxa isku heynaa waxay tahay dhahday ninkan wuxuu leeyahay waa ku rabaa uu i hadal jilcinayay tiri qof i raban wuu egayay tiri haddana waan ka baqaayay tiri qof dab ku gubtay dambasta xitaa dab ayuu u maleeyaa gabadhan wiilkii hore dhibkii u geystay ayaa ilaa iyo hadda maskaxdeeda ka guuxeyso kana sidoo kale wax uu ku xujeenayaa waxay tahay imaaw adiga Muqdisho anigan waxaan ku dhahay tiri adiga imaaw Hargeysa marka waxay tiri wuxuu dhahay waa ku imaana ugu dambeyn adiga aniga ku imaanayo marka waxay leedahay waxaan ka cabsanaa sidii kii oo kale inuu igu sameeyo waalidkaygiina uma sheeginay tiri maxaa yeelay aaminaad dhan kuma qabayay tiri nin aanan is arkin oo si live aan u wada kulmin marka asxaabta Munayza waxay leedahay la soo taliyaan maxaa sameeyaa bal walaalay qaaliga oo boorka iska jafo commentiga soo qor faantiin commentiga la soo qoro aniga la igu dhiirigeliyo gabartana sidoo kale inta wixii markaas fikra u heesaan hoos ugu qoro waa maalin jimca ah waa video xilliga oo soo gal doona jimca soo duubaya sidoo kalena aan ku salino nabigeena Maxamed alayhi salaatu wassalaam idinkan ajirka qaadanaysa anigana ajirkiisa mid la mid aan qaadanaya marka jimca mubaaraka idin leeyahay intaan videogan mid la mid ah ku kulmi doonana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi